waxaan ka hadlaynaa xaaladahan taagan ee komishanka iyo nabadgelyada gobolada iyo xaaladda taagan haddii aan qodob u soo qaato dadweynaha reer Burco ama gobolka Togdheer ama reer Somaliland waxaan leenahay nabadgelyadeena aynu ilaashano inta hawshaas dhinacuun inoo dhaafayso maadaama gudoomiyihii iyo qoladii Hargeysa ee heer qaran ay ku jiraan hawshii qoladii komishanka ay wada hadlayaan inagu aynu ka dharsugno rabshadana aynu joojino magaaladeena aynu ilaashano nabadgelyada ku noolaan taa intaas oo ku dhaafaya nabadgelyada waxa soo hanan ka hadlaya waxa weeye komishanka khaasatan komishanka qaranka waxaanu ognahay goobo fara badan in xisbigu ashkateeyay abashooyin badan ma keenay dad fara badan oo shaqaale ah oo xisbiga ka shaqeynayay oo hawlwadeenadii xisbiga ahaa la xirxiray la laayay ciidamo loo adeegsaday saldhigyo lagu guray oo heer qaran iyo heer gobol iyo heer degmada komishanka waxa laaliyo wuxuu ka qabtay ma jirto waanu daawanay waxa jirta digreeto madaxweynuhu soo saaray oo ahayd in shaqaale ay hantida dowladda lagu kaabay karay iyadoo jirta ma itixraacin komishanka qaranka markaasna way daawanay waxa ka weeqay waxa u dambeysay cabashada u dambeysay madaxweynaha sarreeyo la salaaxa ma jiro ee labada jeer uu tagay gudoomiye xisbiga oo ah musharxi xisbi iyana way ka wasqaado saadaraadad ama waxa uu aragnaa dhibaatada dalka ka dhacday ama ceergaabaha noqotaba Burcaan noqotaba Boormaan noqotaba Hargeysa noqotay dadka ku dhintay iyo dadka ku dhaawacmay iyo khasaaraha nafi maal ka dhacay inay ka mas'uuliyad komishanka maadaama ay ka dhayga adeegeen cabashooyinka laga hadlay imikana kelmad baan iyaga oranayna komishanka qaranka waxaan leenahay badbaadada dalkooda ay ku xirantay Somaliland jiritaankeedu ay ku xiray dadku inay soo wada noolaadaan ay ku xiray waxaanay ku xiray intaas oo dhan in cadaalad dadka u dhaxaysa haddii aad dhinac noqotaan ama aad noqotaan haddii ay soo baxdo natiijo sharci cid alla ciidii kartaa ma jirto laakiin haddii aan cabashooyinka dhageysamayno khaladaadka jirana sax mayno dadkana qarxin mayno rabshadu way imanaysaa iyo dhibaatadu dalka burburinayna waxaan ku noolaa waa nabadgelyo waxaan ku shaqaysanaa waa nabadgelyo waxa jaamacadaha ku dhisan waa nabadgelyo waxa dad ku shaqaysanaa waa nabadgelyo ka wax lagu bartaa waa nabadgelyo nabadgelyadii idinka gacanteedii saartay saakis ilaahay oo masaara idinka la yimid magacaabo doorasho dhacday dalka iyo dadka badbaadiyaan dadleena haddii badbaadi wada wixii dalka yimaadeen idinka ka mas'uul